ardaydiisaba muhiimadda galabta mar labaad ku celiyo waxay ahayd ardayda soo qalan jabisay ama secondary ka soo baxeen maaxido in loo sameeyo soo dhaweyn cusub iyo sanad guuradii sagaalaad ee jaamacadda Nugaal University waxaan ku soo dhaweynayaa haddaba Caaqil Cabdinaasir Ile oo ah maamulaha dugsiga sare ee Nugaal Secondary School oo inoogu hadla afka maamulada secondaryada magaalada galabtana filayna dadisi halkan fadhiyaan sallim ala nabiyina Muhammad wa ba'du waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta meesha isugu timid macallimiinta jaamacadda ardada jaamacadda dadka kale ee dadweynaha ee meesha isugu yimid rag iyo dumarba leh ayaan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan soo dhaweynaynaa oo aan raalli ka nahay yeedhitaankaana loo ku yeedhay xafladda furitaanka jaamacadda sanadka cusub ee xafladda loogu sameynayo ardada cusub ee maaragtay sanad dugsiyeedka soo gelaysa iyo sanad guurada sagaalaad ee jaamacadda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa annagu maadaama dugsiyada sare ay yihiin meesha maxaan ku raadayay quudinaysa ama meesha maxaan ku raadayay dee jaamacaddu maxaan ku raadayay ku tiirsan tahay waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa dhalinyarada dugsiyada sare ka soo qalin jabisay waxaan aad ugu boorinaynaa inay ka qayb qaataan horukaca iyo maxaan ku raadayay sumcadda iyo maxaan ku raadayay tayeynta jaamacadda maadaama inagu aynu jaamacaddan aynu leenahay waxaa laga yaabaa dhalinyaradu inay badanaa isaga hanqaltaagayaan meelo kale sida gobollada kale sida maxaan ku radaa dalal kale inay isaga hanqaltaagayaan laakiin taas waxaad dareemi karaysaa meelaha aad u hanqaltaagayso dadkoodii baa hormarsaday marka adigu uun mar kasta uun qariib uun baa tahay oo waxa weeye fikirka haddii la fiiriyo waa la wada leeyahay laakiin waxqabadkii in maskaxdii la wada isticmaalo ayaan laga sinay waxaan ku boorinayaa in aynu horta marka hore aynu ku faano oo aynu dareeno nimcada aynu ku sugannahay waxbarashadeena iyo si deegaanka loo horumarayo isla markaana aynan meel kale u qaltaagina aynu taageerno jaamacaddeena iyo waxa weeye mu'assasaadka tacliimiga ee kale ee jira dhammaantood oo aynu ku faano oo aynu iimaansano oo aynu kubcino sidoo madax kale u kubcisteen taas waa midaas talabaad maadaama aynu arday nahay cilmigu wuxuu u baahan yahay tacab buu u baahan yahay tacab ayuu cilmigu u baahan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis ayuu wuxuu ku lahaa man yuriid allahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wainama alcilmu biاtacallum wainama alcilmu biاtacallum macnaheedu waxa weeye atacallum takalluf baa ku jira oo wax macnihii laisku takallufo oo waxa weeye dhibaato u baahan oo waxa weeye inaad dadaashi oo tacabti u baahan cilmigu marka wax si fudud lagu barto ma aha waxaa fursad inoo ah innaga dhammaanteen in aynu awoodno aynu dhallinyaro nahay waqtigiisi aan joogno laakiin markaad dib u fiirisid ka maanta 20 jirka markuu 8 jirkiisa dib u fiiriyo ayuu wuxuu dhahay niyo 8 jirkayga ugu celiya si aan waxyaalo aan soo dhaafay aan u barto ka soddonka jirana inagu dib inoo soo fiirinaya wuxuu leeyahay warbariga aan soddonka waxba ay dhaafay markaan ka eegay dhinacyo fara badan mees xulinta keliya aan siiyay horumar bay samaysay ama gobolka horumarku ka gaaray waxay noqotay dhinaca waxbarashada oo gobolkeena khaasatan saadowtiinba haddaad ogtiin dhinaca diiniga oo kale wuxuu ka mid yahay gobollada dhinaca diiniga ugu horeeya Soomaaliya weliba yahay magombane gobolka koowaad xagga diinta ugu fiican sababta waxaa la helayaa ilaa intii laga soo bilaabo ilaa secondary laga baxay ilaa jaamacad halkan baa laga helaa filayatada marka kulli ardayda ma xakaana waxaan odhan lahaa maadaama aad ka helaysaan gobolkiina sidoo samee dhaxay misra inaad ka barata ilaa jaamacad inaad idinkuna haddiina naskaga samaataan oo macnaha ay meelo kale intii ay nasiibsan halkan aad macnaha si aan baqaadaan sidoo horumar u gaar dhinaca jaamacadda diinta sida uga dhisan tahay dhinacyada ka hooseeya dhinaca jaamacadda maamulka iyo macallimiinta dugsiyada gobolka ardayda ka soo qalin jabisay dugsiyada sare iyo macaahidda sare ee gobolka ardayda jaamacadda dhiganaysay ee horey u diiwaan gaarsanay
dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa kadib muhiimaddu waxay ahayd laba qodobuun. xafladdan inay tahay xafladdii sanad guuradii 9aad inay hadda bilaabmayso oo xilliga kan ay tahay, taas waxa weeye haddii laga hadlayo sanad guuro kolle waa in taariikhdii jaamacaddu lahayd iyo waxaa laga soo sheekeeyo. laakiin waxaan u malayaa inteynana waa ka wada dhegaysanahay taariikhda jaamacadda ay soo martay, xilligay furantay, heerarkay soo martay, meeshay hadda marayso, intaba waxaan u malayaa inaan ka wada warhayno. waxaan markaa ku gaabsanayaa iska qodobo guud oo ay ugu horeyso ardayda dugsiyada sare ka soo qalin jebiyey iyo ardayda ka soo qalin jebiyey macaahidda, hadday tahay macadka shareecada gobolka ku yaala, hadday Laascaanood, kan Buuhoodle, xudun lafti waxaa mid ahaa, inkastoo maan laga qalin jebin isaga. macadka caafimaadka iyo macaahidda kale u dhigma dugsiga sareba waxaan leenahay horta ku soo dhawaada gacmo furan, ku soo dhawaada jaamacaddiinii Nugaal. waxa weeye jaamacadda Nugaal waxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale. ugu horeeya waxa weeye waa jaamacad ahli ah, waa jaamacad aan qariib ahayn oo meel kale inagaga imaan, waa jaamacad ka soo baxday fikirkeenna, waa jaamacad aynu ku bixinay dhaqaalaheenna, waa jaamacad aynu kaga shaqaynay aqoonteenna, waa jaamacad inagu aynu gacmaheena ku samaysanay. haddii ay wax noqotona aynu inagu wada leenahay ammaanteeda, haddii ay wax noqon weydana inagu wada leenahay dhaliisheeda. waxa weeye marka taas bay kaga duwan tahay jaamacado kale oo dhan, hadday yihiin kuwa caalamka laga keenay iyo hadday yihiin kuwa gobol kale ku yaallaba. waxaynu markaa u baahannahay sidaynu u tayayn lahayn jaamacaddeennan aynu awood ugu yeelin. soomaalidu kolle waxay tidhaahdaa wiil jiilaal dhashay waa reerkooda wax la qabe. maxaa laga wadaa kelmadda? hadduu jiilaal dhashay waxa weeye barwaaqo inuu ku noolaado iyo inuu caano badan helo iyo inuu wax badan helo fili maayo, waayo reerkooda jiilaal buu jooga. jaamacadda Nugaal waxay la tahay Laascaanoodun bay la mid tahay. Laascaanood wadcigeeday ku nooshaa, badan haysato, dhaqaalo badan bay haysataa. haddii Laascaanood waxa weeye ay ku nool yihiin dad badan oo waxa weeye tacliimo sare soo bartay, kaasun bay la mid tahay. waxay la tahay jaamacadda Nugaal waxaa lagu qiimeynayaa deegaanka ay ku taallo bun bay la mid tahay. dadaalku waa iska jiraa iyo firigtu iyo waxa weeye haddii qofku uu mintid yahay, waa tii Soomaalida odhan jirtay mintid farayar midhihii bataa kama macaashaan, soo maahayn. taasun bay ku soo gaadha bay ila tahay in la yidhaahdo maanta heerka 5aad bay kaga jirtaa wax 100 jaamacadood ku dhow oo ku yaalla deegaanadan Soomaalidu ay degto. waxaynu u baahannahay markaa tacliinteenna inaynu kor u qaadno gebi ahaanba. iska barwaaqaysan waxay iska sameeyaan maaha, baahi ay ku jireen bay rabeen inay kaga baxaan, markaasay u fikireen, markaasay wax u barteen, markaasay u dadaaleen, markaasay ka midho dhaliyeen. dabka maanta inoo baxayaad aragtaan. ninka alifay waxaa la yidhahdaa 1000 goor markii laambadi ka dintay 999 goor buu shidmi weyday, markii kumaad bay u shidantay. waa la sii tadawariyay marka hore loo sii wado. waxaynu markaa ku tartami karayno, waxaan is leeyahay taalentiga dadkan ay leeyihiin, bulshadanu leedahay maskaxda ay leeyihiin waa maskax waxa weeye wax qaban karta, wax weelan karta. waxaynu markaa u baahannahay in aynu ku tartanno dhinaca aqoonta. ma ka dhigi karaynaa deegaankeenna inuu noqdo deegaan aqooneed oo loo soo raadsado oo aqoonta meeshaynu inagu maanta ka raadsanayno meelo kale aadayno? ma ka dhigi karaynaa? ma idinla tahay dhalinyaro? haddaynu inagu iskaashanno oo aynu u fekerno oo aynu inagu iimaansanno waa ka dhigi karaynaa. saas anugu aaminsanahay. waxaynu soo marnay xilli dugsi hoose keliya ka furan yahay. waxaynu maanta maraynaa in deegaanadeena ay ka furan yihiin 145 iskuul oo hoose dhexe. waxaynu maraynaa in deegaankeenna uu ka furan yahay 15 dugsi oo sare. waxaan marayaa 13 baa dadku ay xusan yihiin, laakiin waxaa jira 2 iskuul oo midna ku yaalla Jiiday, midna uu ku yaallo Ceerigaabo, bariga Ceerigaabo ku yaallo. labada dugsi marka lagu daro Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle marka la isku daro waa 15 dugsi sare. waxay noqonayaan markaa 13 ka mid yihiin in ay noqdaan dugsiyo sare oo caadi ah, 2 ka mid ah inay yihiin dugsiyo sare oo sharci ah. weliba intaa waxaa sii dheer dugsiga sare oo isagu ka sarreeya dugsi sare loo odhan karo
waa macadka caafimaadka waa isaguna intaa dheer intaa haddaynu haysano waxaynu kala haysanaa jaamacadii ardaygu markaa higsigu leeyahay markii awal dugsiga horese keliya u jiray ardaygaasi meel uu higsado ma waayo markii dugsi sare la soo gaadhay meel ka sarrayso ardaygu higsado ma hayn maanta oo waxa weeye ilaa jaamacaddii isku qoofalan tahay waxaynu markaa leenahay wax aynu higsan karno baan markaa haysanaa ardaydayna yaryaari waxay haystaan vision u muuqdo oo u sawiran oo meel kasta meesha uga sii gudbi lahaa ay u sawiran tahay baa maanta u muuqata sidaynu markaa uga dhigi karnaa deegaankeennan deegaan tacliimeed sidee uga dhigi karaynaa waxay la tahay dhowr qodob baan ka tilmaamaya qodobka koowaad waxa weeye horta waa inaynu iimaansanno deegaankeenna had iyo jeer waxa weeye soomaalida dadka soomaalida ah waxaa iskaga jira waa reer guuraa dhaqankii miyigaa ku jira dhaqankii miyiga baa inoogu jira waxaynu had iyo jeer jecel lahay in aynu soconno oo meel kale u guurno aynu kala saarno qofku inuu deegaanada buuqdo waa muhiim fasiiruu fi lardi ilaahay baaba ina leh oo dhulka ku socda oo wax soo ogaada waxa weeye taasi waa muhiim laakiin in aynu kala saarno war deegaankaagii haddii aqoontii kuu taalo maxaad meel kale u aadaysaa halkaaga madax ku dhigaysa waxaynu markaa u baahanay inaynu iimaansano dugsiyadeenna hoose inaynu iimaansano dugsiyadeenna dhexe inaynu iimaansano dugsiyadeenna sare inaynu iimaansano macaahideenna sharciga ah inaynu iimaansano macaahideenna caafimaadka inaynu iimaansano jaamacaddeenna aynu ku talagalno sidaynu iyaga uga dhigi lahayn wax بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبة دي سندك أيام كم عابد لها قدومية عبد الناصر محمد براء هل كان خطبة دي كأخري وعن قيمين لها إننا نحن وخطبتي سندك سو قفك مدحداهي الدنيا مدحوينياشو مجتمع سندكي مربي ليهين وقتي اي سو جيديان سندكاس iyo wixii qabsoomay ama wixii la qaban lahaa marka anigu gudoomiye Cabdi Naasir khudbadiisii aad baan uga faa'iideystay allana ha barakeeyo dhamaanteena ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna barakeeyo tawfiiqda iyo wax wanaagana Allah ina waafajiyo waxa aynu ka shaqeynana Allah ka dhigo wax ilaahay raali gelinaya ilaahay jannadiisana aynu ugu dhawaanayno adduunkana masiibooyinka dhacaya ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inaga xijaabo amiin وسو كوبيا كدبنا فرصة waxaan siinayaa su'aalaheena iyo gudoomiye ku xigeenka boardka oo inoo soo xidha kadibna TV-ga Somali Channel oo shahaado sharaf wax qabadkooda aynu gudoonsiino shantii bishan aynu ku jirno oo maanta 14 ah waxa kulan gudaha dalka iyo dibaddaba isaga yimid xubnihii boardka oo badankoodii wax yar oo ku maqnaa cudurdaar ma ahaane intoodii cuscuslayd ay isu yimaadeen shirkaas dibadda iyo gudaha la isaga yimid waxaa lagaga hadlayay deegaankeennan guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha dacwada jaamacadda iyo macaahidda hal ku dhiga shirkaasi wuxuu ahaa deegaanka aynu deganahay ma ka dhigi karnaa meydaan ama goob tacliinta loo soo doonto ama ku caanbaxay tacliinta jawaabtuna waxay ahayd haa waan ka dhigi karnaa waxqabadkuna wuxuu ahaa sidee baan uga dhigi karnaa deegaankeeni inuu deegaan ku hormari kara haddii dhaqaale lagaga hormaro oo wax kale lagaga hormaro inuu tacliinta ku hormari karo dalaa'il baa loo hayaa iyo markhaatiyaal dalaa'il waxaa loogu hayaa ummadihii hore haddii la fiiriyo ama soomaalidii hore 12 qof ee dhiijiyada ka noqday isku darsankii soomaalida waqooyi iyo soomaalida koonfureed
12 dhiiji ee ugu horeeyay ee dhammaan Soomaaliya loo magacaabay 8 kamid ah taariikhda waxaana loogu sheegay inay ka yimaadeen deegaankan aynu degannahay waa taariikhdii hore taariikhda dhow macadkeennan Al-Furqaan waqtigii Cabdinaasir iyo ay dhiganayeen muddadii yareed ee uu furnaa dadka ugu horeeya iminka diinta waxay ahaayeen dadkii waqtiga macadka dhiganayay taariikhda cusub waxay noo sheegaysaa isla macadkeennani 15 macad ee dalada isku ah ee dhammaan Soomaaliya ku yaala in aanu taariikhda ku hayno inuu yahay macadka koowaad oo 15 ugu horeeya macadka Al-Muntada oo ku yaala Burtinle ayaa la yiraahdaa waa macadka numberka labaad galaya sidaa daraadeed waynu samayn karnaa taariikh ah gobolku inuu noqdo gobol ku caan baxay waxbarashada iyo aqoonta loona soo doonto oo looga yimaado ilaa iyo Gedo ilaa iyo muxuu ahaayay Boorame ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo dhinacyada ay muxuu ahaayay Soomaalidu inta waxaan ku xoojinayaa Cabdinaasir hadalkiisii qiimaha badnaa sanadkan maxaynu haysanaa hore waxaynu haysanay kulliyadda maamulka iyo maareynta kulliyadda kombiyuutarka kulliyadda shareecada iyo barashada islaamiga ama darasatul islaami kulliyadda waxbarashada iyo kulliyadda horumarinta arrimaha bulshada iyo hoggaanka wanaagsan oo ah community development and leadership shanta kulliyadood way inoo furnaayeen macadkii dibloomada ahaa oo ay hoggaaminayeen ustaad Nuruddin iyo ragiisuna waa inoo furnaa macad luqadda ah oo subaxii ahayna waa inoo furnaa macadkii neersinku waa inoo furnaa waxbarashada sare inaha ayaa kamid ahayd sanadkan boorka waxaanu hor dhignay 3 kulliyadood in la soo kordhiyo 3 kulliyadood aanu hor dhignay waxay ahaayeen deegaan ahaan kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha kulliyadda labaadna waxay ahayd kulliyadda caafimaadka qaybta loo yaqaano public health saddexaadna waxay ahayd kulliyadda loo yaqaano political science and economics oo af Soomaali ah arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya way ogtihiin waxa la wareersanaa muddo fara badan 21 sano aan ugu dhamaaday